بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن شاء الله درسنا أنا حلقة إن نكحصه dhibaatooyinka uu inoo geysto shaydaanku oo ku sheegay Rabbi subhanahu wa ta'ala inuu yahay cadowgeena oo uu quraanka ku sheegay innahu lakum adu in shaytaana lakum aduwwun mubin hatta ila wuxuu ku sheegay subhanahu wa ta'ala cadow kaliya kuma sheegine waa cadow cadbu kulay waa cadow muuqda oo aan shaki ku jirin فاتخذوا عدوا وريدكم عدو كدغت عدو إذن ياهي إلما نبي آدن ذريتيسي عرورتيسيو إنسانكو ددو وحو إذن ياهي شيطانكو عدو إذنكم عدو كدغت عدو إنو ياهي وحا دليلكو إنو بقى وسواسكي أكردي آبه النبي آدن سقو جنة كتيرة ويلقيت ككنعون لقا قبل علينا وحكالي وحويا واجدك وارتانك آدم ولي دمانين وانا جدكي بقرتوية ده مركز جدك وحكا لك جماعة لنا إياه جندي ربي جندا صوتا عنا حاوي نبي الله آدم يحاو جدك عننا جدكي أيوكو وسواسي ويد جدك كلام معها واجدك بقرتوية ده وانا جدك وارتانك مركز واحد لقى اللي يتاويه aad boqorna noqotid noloshaadana waligaaba noolaatid waswaaskii ku riday geedkii buu cunay dabeedna ma taqaana waxa weeye halka mashaqa ka dhacday waxa weeyaan waa qiso dheer oo aan muxaadaradan hadda ku soo koobi karayn waxa shaydaanka baan weejeeda inuu yahay halka ay dhibaatada inaga soo bilaabay marka hadda uu adduunyadii leeyna keenayna amal kasto wacan oo aynu sameynayno weynaga dhaxgalaya kamidalahan markaan u soo qaato salaada habeenkii marka aynu seexanno aynu dadka tukanaya salaada ay doonayaan inay salaada u kacaan markaynu seexanno saddex silsiladood buu inagu xiraya silsilada koobaad waxay inaga xiraya qaybta hore midna qaybta dhexe midna qaybta dambe saddexdaas silsiladood markuu inagu xiro wuxuu ina leeyahay war seexo noomata tawiil hurdo weyn oo dheer seexo wuxuu doonayaa in salaada fajr u kicin ee fadliga badan leh ee khayrka badan leh mataqaana salaadaha jannada lagu galaa bishaarta rasuulku ku sheegay mataqaana uu yiri rasuulku alayhi salatu wasalaam uu yiri bashiru u bishaareeya maalinta mataqaana qiyaamaha janno u bishaareeya kuwa habeenkii u guura galaya salaada fajr iyo salaada cishe masaajida kuwa u guura galaya mugdiga maraya weeye kuwaas mataqaana uu ka xilaya salaada oo hurdo mashquulinaya hurdada marka uu saaw galiyo mu'minku marka uu salaada u kaco waxa go'ay ee uu hurdada ka kaco xallat midba burburayso kuwii silsiladii uu ku xiray kamida dam halkaas ku burburaysa khasaara ku dhacay maaragtan tii labaad ayaa haddana marka uu soo weysaysto ee uu mataqaana weysadii dhamaysto ayay haddana taasuna jabaysa oo burburaysa taasna halkaana khasaara kaga dhacay maaragta tii saddexaad ayaa waxay burburaysaa marka uu salaadii qofku tukado dabeedna qofkii wuxuu noqonayaa qof nashiida oo mataqaana aan haynin wax la yiraahdo lulmo iyo wax la yiraahdo nucaas iyo wax la yiraahdo cajis maba hayaba marka qofku salaada soo tukado qofka ay salaadkii qof ajzaana ma ahan waxaan ilaahay laga magan galo laga ducaystaa allahumma inni a'uudu bika min al-ajzi wal kasal عجزك إيه كسلك إلهي بابا لقى بريال ودعو لقد دعيستو إن متقانا إلهي كان نبتقليه مركز شيطانكو dhibaatooyinka inuu hayo haddana salaada ayuu ina soo dhaxgelaya ka xusuuso dhibkaasu ina soo dhaxgelaya arintaana waa in la iska yareeyaa ila shaytaankana a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inta la yiraahdo aad iyo aad looga feeyigada inta khayrka aad ku jirto sidii aad uga badbaadi lahayd xalqadanna intaas aan ku soo koobaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh